kulanti waxaan wanaagsan daawadeel meel kasta oo ku sugantihiin ku soo dhawaada barnaamijka xogta ganacsiga oo aanu maanta ku eegi doono mowduuc ku saabsan sharikada wadaag oo markaasi u qaybsanta laba qaybood qaybta caymiska iyo sidoo kale qaybta maalgelinta. bal marka hore waxaynu ogaan doonaa muxuu yahay caymisku, aqoon inteen leeg ayaa Soomaalidu markaasi ay u leeyihiin, faa'iidooyinkiisu maxay yihiin, yaa ka dheefi doona oo bulshadu qaybaheeda aad ugu baahan, ma qaybta gaadiidka mise qaybta caafimaadka mise qaybaha kale ee nolosha. baahi intee leeg baa ay u qabaan bulshada Somaliland in markaasi ay helaan sharikado caymisa oo hufan oo markaasi soo saari kara adeegii caymiska oo dadweynuhu si aad ay ugu baahan yihiin. sidoo kale waxaynu eegi doonaa sharikada wadaag qaybteeda kale ee maalgashiga oo markaasi iyadana haysa fursado waaweyn oo dhalinyaradu markaasi ay u baahan yihiin, oo ay ka mid tahay in dhalinyarada hayntooda ay yar tahay markaasi ay ku maalgashan karaan lacag ka yar $200. arrintaasi oo faahfaahinteedana aad ku daawan doontaan barnaamijkan xogta ganacsiga ee telefishinka MMTV. aan soo dhaweeyo gudoomiyaha sharikada wadaag Cabdirashiid Maxamed Baaxeer oo markaasi inoo sharxi doona waxa uu yahay caymis iyo sidoo kale qaybta maalgashiga. Cabdirashiid soo dhawo. mahadsanid Cabdishakuur adiga iyo MMTV ba aad baan ku mahadceliyay dhammaan daawadayaasha. sidaas sheegtay runtii waxaa dhawaan ay dowladda Jamhuuriyadda Somaliland madaxweynuhu uu magacaabay hay-ad sanadkii ma ka dhamaaday bishii koowaad oo xeerkeedii uu baarlamaanku ansixiyey aasaasidda hay-ad caymis. runtii intii Somaliland jirtay may jirin hay-ad caymis. waxaa ugu dambeysay dowladdii hore kacaanka oo la odhan jiray hay-addii caymiska qaranka. marka imika waxaa la odhan karaa waa sanad malaha exactly waaba sanadba oo January 2021 waxaa runtii hay-addaas xeerkeeda markii la asaasay ilaa imika muddada sanadka waxaa lagu guda jiray diyaar garowga sidii loo hirgelin lahaa caymiska. sida dastuurka Somaliland uu dhigayo hay-adda waxaa dastuurkeeda lagu asaasay in noqdo caymiska waafaqsan shareecada islaamka. dunida laba caymis baa ka jira, marka ka waafaqsan sharciga islaamka ee culimada muslimiinta ogolaadeen ayaa Somaliland ay dastuurka ugu qoran, xeerkuna ugu qoran. marka anagu waxaanu ka mid nahay shirkadaha doontay laysanka iyo rukhsadda caymiska. nasiib wanaag ku guuleysanay alxamdulilah. wadaag insurance baanu asaasnay. marka caymisku waxaynu in yar ka tilmaamaynaa caymiska islaamiga ah, kadibna waxaynu yar ka odhan doonaa faa'iidada bulshada uu leeyahay. caymiska maanta dunida ka jira waa laba nooc. mid waxa weeyaan marka hore waa isku dabeecad oo wuxuu labada caymis wuxuu u taagan yahay qof doonaya dhibaato lama filaana in laga caawiyo hadday ku timaado. marka dhibaatada lama filaanka ahi dee waa lagu sii talax tegayo ilaa waxay sii maraysaa meelo aan la qiyaasi karin. laakiin asalka waxay ahayd dhibaatooyinka la yaqaanay ganacsiga iyo gaadiidka iyo guri dhismayaasha iyo wax noocaas oo kale ah. khataraha lama filaanka in qofka laga caawiyo. marka caymiskan islaamiga ah ama la yiraahdo ta'miin at-takaafuli ama ta'miin tacaawuni baa la yiraahdaa. magacaas ay u yaqaanaan culimadu u bixiyeen. marka la macnaheeyo waxa weeyaan waa iskaashi, waa caymiskii iskaashiga. taariikhdiisa in yar haddaan degdeg u dulmaro, runtii waa fiqiga islaamka ee mucaasirka baa la yidhaahdaa. kumuu jirin fiqigii hore ee imaam Shaafici iyo Axmed iyo Maalik iyo 1200 sano ka hor kutubta lagu qoray. muddooyinkii dambe uu soo baxay inta kolley anigu aan arkay ilaa dhowr iyo 60kii ayaa ugu horeeyay 62kii 63kii kulamo ay yani culimada muslimiinta ku qabteen magaalada Dimashq ayaa ugu horeeyay in laga hadlo oo la kala qeexo yani insurance-ku xalaal baa ma soo xaaraan. markaas la isweydiiyey. marka casriga culimadii joogtay waxay ku qeexeen insurance-ka ama caymiska waqtiga jira inaanu banaanayn. sababta aanu ku banaanayn waxay yiraahdeen wuxuu
wuxuu qofku lacagta uu bixiyo shirkadda iskale waay hadday wax ku dhacaan way ka bixinaysaa waay laakiin lacagtaa qofkaasi u soo noqon mayso haddaanay weligii wax ku dhicin dib dambe ugu soo noqon mayso 20 sano hadduu ku jiro waa lacag shirkadda iskale hadday wax ku dhacaan buu wax ka bixinaysaa markaasaa darada culimadu waxay yidhahdeen waa beec qarar oo nooc khiyaano ah ku jirto ama qamaar uu ku jiro waay ma banaana bay yidhahdeen waay markaa runtii way ijtihaadeen culimada xilligaa intaan runtii waxay soo saareen model ama qaab waafaqsan shareecada islaamka waxay ka saareen qaybtii qararka iyo khamaarka waay marka waxay yidhahdeen waxaa sax ah in caymiska la galo hadday cidi maamulayso iyo hadday dad keligood iskoo isu tegayba wax isku darsanayaan waay marka qaabka iminka runtii uu dhisan yahay waxa weeye maalan shirkadda maamulaysa dadka caymiska marka ay lacagta isku darsadaan shirkaddu doorkeedu waa wakiil waxay wakiil ka tahay lacagtan ay dadku isku darsadeen waay waa shaqada koowaad shaqada labaad dadkaa qof ka mid ah ama cid ka mid ah haddii ay dhibaatadii ay ku heshiiyeen ku timaado shaqadeedu waa inay ka bixiso kaalinta saddexaad waxa weeyaan lacagtaa inay ilaaliso oo haddaan waxba iman oo baaqi soo hadho dadkiibaa iska leh taladeeda iyadaa iska leh way odhan karaan sanadka dambe aanu ku gelaynaa wuu qaadan karaa qofku lacagtiisii sideedaba u qaadan karaa laakiin as ahaan waa milki ay iyagu leeyihiin waay inta u dhaxaysana lacagta meeshaa taala shirkaddu hadday u aragto dan in maaragtay la maalgeliyo oo lacagtii la kobciyo waxay culimmada ogolaadeen in lagu shaqeeyo oo lagu sameeyo heshiiska oo la yidhaha mudaarabo marka qofka caymiska gelaya faraqa u dhexeeya markaa caymiska culimmadu ay mamnuuca ka dhigtay iyo xarimtay iyo caymiska ay culimmadu jidaysay waxa weeye midna lacagta waxa iskale shirkadda midna dadka iskale eegada farqo inta dadku hadday fahmaan conceptka way fudaanaysaa wax dambe qofka lacagtii laga qaaday ee uu bixiyey caymiska uu ku bixiyey haddaanay waxba ku dhicin ka aan islaamka waafaqsanin wuxuu sheegayaa in shirkaddu lacagtaa yeelato maadaama qofka waxba ku dhicin kan islaamka waafaqsanna wuxuu sheegayaa qofkii haddaanay waxba ku dhicin lacagtii uu bixiyey way usoo noqonaysaa ama isagaaba iskale wixii laga isticmaalay mooyaane khidmadii shirkadda dadkii kale qofku wuxuu ogolaanayaa oo heshiiska ka mid ah isagana in laga caawiyo sanduuqa isna wuxuu ogolaanaya in dadka kale sanduuq ku jira laga caawiyo marka horta farqa u dhexeeya waxa weeyaan waxaa la tahaa runtii liis dheer oo fara badan laakiin kuwa ra'iisiga haddaan soo koobno ugu muhiimsan waxa weeyaan lacagta shirkadda ay qaado ka aan islaamiga ahayna banaanayn shirkadda iskale kan inagu maanta ka shaqeynay Soomaaliland la jideeyay ee anagu aan wadaag ahaan ku shaqeynayna waxa weeyaan lacagta dadka laga qaaday iyaga iskale khidmadda ay shirkaddu ka qaadato sida imika xawaale haddaad dirayso $1 haddaad dirayso $40 khidmadaha laga qaadaya khidmaddaas unbay shirkaddu leedahay lacagta iyaga iskale laakiin lacagta badankeeda qofka baa iskale dadka iskale waaya su-aasha markaa runtii waxaa laga gudbayaa horta asal ahaantiisa dadkeenu waa dad muslima mucaamalaadka noocan oo kale ah waa inay fahmaan horta inuu sharcigu hal ka taagan yahay iyo culimadu waxay ka yidhaaheen wax badan baa laga qoray ilaa xilligaa 62 ama 61 qoraallo aad u fara badan iyo cilmi baaris fara badan baa laga sameeyey bangigii u horeeyey ee asaasma ee ku shaqeeya ta'miinka islaamiga waxaa sameeyey bank Malik Faisal baa la odhan jiray 77 baan filaya 78 ayaa Suudaan ayuu ku hirgalay maanta oo aynu joogno 2022 runtii dhaqaalayahanka adduunku waxay ku tilmaamaan inuu ka mid yahay borogyada ama ganacsiga xoogga u koro aad iyo aad u koro meelaha qaar waxaa la tilmaamaa wadamada qaar 65% inuu koro waxaa ka mid ah meelaha aad looga dunida muslimka Malaysia Sacuudiga khaliijka guud ahaan Masar Suudaan Jazaa'ir Morocco Yurub imika bangiyada waaweyn Lloyds iyo Swiss iyo Switzerland iyo waxay leeyihiin yani Islamic insurance iyagu diintooda waa wax kale laakiin mucaamaladan waxay kugula dhaqmayaan qaybta islaamiga lacagta ka qaadayaan dad dhibaatada gali weyd lacagta lagu soconaya waxa la arkay faa'iidada uu leeyahay inta markaan runtii ku soo koobo bayaaminta taariikhdiisa waxa timi inaga sidoo muddo dheer lama maqal caymiska laguma shaqeyn waxaana runtii imika kaalinta qabta reeraha qabaa'ilku waxay ku wada jiraan caymis waa ma qorna laakiin waa nidaam dejisan
reeraha badankoodu magtun bay wada bixiyaan waay wixii kale qofka gaadha isagaa iska bixiya waay laakiin magta waxaa boqolkiiba 99 dadka yani qabaa'ilku way wada bixiyaan waay insurance markaa haddaynu maalan tusaale soo qaadanay qaybta gaadiidka baabuurta oo kale runtii Soomaaliland maanta waxaa jooga 100,000 oo gaari wax ku dhow waay shirkadaha caymisku markay shaqeeyaan qadarka qofka laga qaadaya ee uu caymis ku gelaya ee isagu uu leeyahay sidaan soo sheegnay wuxuu ka difaacayaa oo fursad u siinaya inuu helo 100,000 ee qof ay gaari dhaqaalaha ay bixiyeen culayskii inay ka fududayso waay maktab aad ogtahay oo 100 halaad marka dhowr boqol 200 ama 300 ama wax la mid ah qofku bixiyo magdhana ku timi laga bixiyo waxay la mid tahay in 99 halaad ay bulshada Soomaaliland ka bixisay qofkan isaguna hal qiimaheed u bixiyay runtii waa faa'iidada iskaashigu leeyahay mucaamalaadka ama yani ganacsiga markaynu ka ilaalino wixii sharcigu xarimay runtii waxa loo baahan yahay waa qayb aad iyo aad weyn oo dhaqaalaha laftiisa wax weyn ka ah insurance ama taamiinka islaamigu waxaa ku dhex jira dhowr laba qodob oo muhiim ah oo inaga waliba aad aynu ugu baahannahay kow horta bulshadan oo iskaashato awoodooda la mideeyo ayaa ku dhex jirta haddaad xisaabka u rogto 100,000 ee gaari yani dhaqaalaha isu keeneen iyagoo shilalkoodii iyo magahoodii laga bixiyey ayaa waxaa laga samayn karaa haddana investment iyo maalgashi lacagtoodii lafteedii oo iyaga u kordhi karta waxaa la gaari karaa sanad uu sii yaraanaya insurance markaan anagu xisaab ahaan ku fadhiisinay sanadka u horeeya sanadka wixii waxa laga yaabaa in mar walba qiimuhu hoos sii dhaco waayo qofka lacag baa u taala haddii xitaa $100 u hadho ama $50 u hadho qiimihii sanadkii hore laga goynaya xalanaya yani iyagu sanadkan intaan soo bixi waxaa ka dhalanaya shaqo abuur fara badan waxaa yaraan runtii qabyaaladu qaybteedii xumayd qabyaaladu qayb ilaahay subxaana wa tacaala inoo jiday jirto silatu raximkii iyo isqaraabadii haa laakiin qaybtii ahayd maaragtay inuu qofku diin ka dhigto waxyaalaha tiiriya waxaa ka mid ah inuu qofku yidhaaho yani mabdi'iisaba oo ku tiiriyo nacaybkiisa iyo jacaylkiisa iyo dhibaatadiisa iyo mabaadi'diisaba yani marka ummadda wax la isugu daro waxaa reer magaalnimo iyo taxadar ayaa dhalanaya runtii marka waxaan isleeyahay waa mashruuc aynu aad iyo aad ugu baahannahay annagu qaabka aan ugu talagalnay insha allah wadaag ahaan maanta inaan ku bilowna Hargeysa Burco Berbera Laascaanood Erigaabo Boorame dhammaan waxaanu u diyaarinaynaa bulshada insha allah tacaala inaanu productgaas adeega ugu wanaagsan usoo bandhigno waa tahay Cabdirashiid sideeba haddaba bulshadu maadaama aanay faham hore ka haysanin ay caymiskii u wada qaadan kartaa oo faa'iidooyinkan aad sheegtay dhanka nabadgelyada oo magihii iyo arrimahaas ay ku jiraan wacyigelinta shaqo abuurkii arrimahaas oo dhan dadku dee hore may fahamsanayn sideeba bulshada Soomaaliland loogu sharxi karaa oo ay u qaadan karaan mashaariicda markaasi caymiska ah runtii de horta qofku waxa u horeeya loo baahan yahay way dadku waxaan fahmaan wacyigeliya nasiibanaag imka mashruucani mashruuc ay shirkadu iska wataan ma aha waa mashruuc ay dowladdu hay-ad u samaysay waxaan rajaynaynaa hay-adda caymiska iyo shirkadaha iyo warbaahinta lafteeda inaynu isu kaashano in dadka la fahamsiiyo oo la wacyigeliyo labada mas'alaba sharciyan mas'aladu waxa ay tahay waa in dadka la fahmaan qodobka labaad horta inay fahmaan faa'iidada ugu jirta sida aad sheegtay waqtiga noloshu way isriixdaa marka hawshan aanu gallo runtii waxaa noo qorshaa inaan qayb weyn gelino wacyigelinta lafteeda investment gelin qofkana marka lagu yidhaaho insurance-kan aad ku jirta adaa iskale haddii shilku yaraado lacagtaadin baa baaqatay eegada yani shilka marka inoo yaraado lacagta haraysa adaa iskale waxay kalifaysaa runtii in anagu shirkadaha guud ahaan haddaan magacooda ku hadlo iyo hay-adda caymiskaba annaga kolley waxaa noo qorshaysan wadaag ahaan inaanu xil weyn iska saarno wacyigelinta oo magaalo walba aanu wacyigelin fara badan ka samayno marka taasi waxay faa'iido u tahay inanka gaariga wata ee ku shaqaysanaya ee noloshiisa ka soo saaraya in loo sheego inuu ilaaliyo gaariga bareegiisa leyrkiisa wiberka biyaha masaxa
يعني waxay ka mid tahay waxyaalaha dadku aanay aqoon muhiim yahay waayo iyadoo roob da'ayo ama ciid hadduu waaba shaqaynaynin shil buu qof geli karaa taayiradiisa waxyaalaha maaragtay nabadgelyada gaarigu u baahan yahay subax walba uu ka fakaro breega inuu qofku ilaaliyo waa halis waxa koowaad taayirka laftiisa hadduu xun yahay way barata laydharka hore iyo kuwa dambe intaasoo keliya marka dambe xitaa shaqo abuur baa soo baxayo yani waxaa jira meelaha wadamada wax la yidhaha quick fit dukaamo yararoo intaa ka shaqaysta waxaa abuurmi doona meherado intaa hagaajiya oo kayuu loo galo qofku leyrka iska hagaajiyo farajooyinka iska hagaajiyo maxaan ku dhahay breegyada iska hagaajiyo ha quick fit ka leeyahay marka wacyigelintu waa qodobka koowaad yani nabadgelyadii baa ku jirta oo qofkii markuu intaa iska ilaaliyo intaan shooranba la gaarin naftiisii buu badbaadinayaa iyo ummadii kaleba marka waxaan isleeyahay qodobka koowaad ee xilka annaga naga saaran maadaama usoo banbaxnay annaga iyo hay-adda oo runtii dee noogu madaxaba waa in wacyigelin ku filan bulshada la gaarsiiya waa tahay waxaa la isweydiin karaa qofku haddii uu ku qanco caymiskii uu bilaabo oo shirkadda wadaag uu iska diiwaangeliyo haddii uu damco inuu markaasi ka noqdo oo ama uu ka baxo iyada sidee looga bixi karaa horta nidaam baa la qoran xeer baa runtii hay-addu diyaarisay maxaa taqriiban 90% xeerkaasi gooluhu hor yaalaa imika hadda waxaan rajaynayaa ayaamaha soo socda inay codeyntiisii dhacdo waxaa la cayminaya waa gaadhiga haddii maanta gaadhiga uu caymiyo qofku uu damco inuu sii iibiyo qiimihiisu ku darsanaya $100 caymiska qofkan uu ka yimid gaadhigan waa caymis ku jira isagu caymiskii ka noqon kari maayo caymiskina waa qaan waa runtii in la galo waa nidaam marka waa inuu ku daraa qiimaha ku darsada laakiin shirkadda inta kusoo noqdo odhan maayo caymiskii iyo celi waxay la socotaa caymisku gaadhigu la socdaa qofkii ku wareegaysa isagaa la wareegayay gaadhigii qofkii kale gaadhiga iibsay hadda wuu dooran karaa lacagtii ama uu ku macaamili karaa mid kaliya buu yeeli karaa hadduu maalan gaadhiga wadanka gebigiisa ka dhoofaya gaadhiga hadduu wadanka joogo inuu caymis ku jiraa ama uu yidhaaho sanadka markuu dhammaado ay lacag u soo hadho wadhani anigu gaadhigii waan iska iibiyey lacagteeda halii celiyo mararkaasoo kale waxa qofka loo celi karaa gaadhigii waan iska iibiyey wixii baaqeega ahaa caymisna ma doon uma baahniye halii soo celiyo markaa waa loo celinaya intii u taali hantida kalena waa la mid modelka cayminka islaamigu qaab walba isku mid culimadu waxay ku macneeyeen waa sanduuq bay yidhaah sanduuqaasi tilaabooyinkaasu maraya kow hay-addu way maamulaysaa shirkaddu way maamulaysaa ay commission ka qaadanaysaa dadku lacag bay isku darsanayaan dhibaatooyinkooda laga xalinayaa wixii u soo haran yaga iskale intaas circlekaas waa iskooda mid haddii caafimaad tahay wax walbana lagu geli karaa caymiska runtii caafimaadkaa lagu samayn karaa maanta magaalooyinkiina waad aragtay yani wuu jiraa dhakhtaro badan baa jira lakin adeeg caafimaadka waad ogtahay si aan uga cabanno haddii la damcayn maanta aynu ishormarino يعني لبدا مشروع انفستمنت iyo insurance-kaba labada waa qaab lagu hormarin karo hargeysa hadii مثلا 10 kun oo qoys haday yiraahdaan waxaanu doonaynaa inaanu shirkadda caymiska ka galno 10 waxa la qiimeynaya 10 kun oo qoys sanadkii $100 ama $200 haday kaar lagu siiyo family-ga oo dhan waa 2 milyan 3 milyan in caafimaad wanaagsan loogu sameeyo mar walba shirkadda intii ay ku leedahay khidmad bay ku leedahay lacagta dadka iska leh wixii ay isku daweeyaan mooyinta soo hadha sanadka waxa intan ay idin taala markaas ay tabab gareynayaan marka waxa abuurmaya adeeg wanaagsan dhakhtarada laftooda way dadaalayaan yani lacagta la isu keenay dadka imika waxa laga yaabaa inta in ka badan ay ka baxdo maalin walba malaayiin ay ka baxdo oo aan nidaamsanayn guri walba waxa laga yaabaa inta soo caruur joogto ka baxdo 100 iyo 200 iyo 300 sanadkii ka baxdo laakiin hadii la nidaamiyo isu taganba awoodda sameynaya oo xitaa dhakhtaradana maanta wadankeena dhamaantood aqoontii way taalaa dhakhtarada way joogaan dhibka u badan ay haystaa waa qalab waxayna Malaysia ugu dhoofina Turkiga iyo Hindiya iyo dibadaha waadna waa qalabka caafimaadka haddii awoodda bulshada la midayo waxaan ku leeyahay iska daa Hargeysa oo dhan xaafad baa ugu filan xaafad walba 10 kun oo qoys ama 5 kun oo qoys oo la habeeyay oo inta wax la isugu daray dhakhtarada jiroon waxba dhakhtar la abuuri maayo dhakhtarada jiro baa la maalgelinaya waa la kordhinaya heshiis baa la gelaya dadkana kaar baa la siinaya way isku daweynayaan imika hay'adaha shirkadaha insurance-ku waxay ka shaqeeyaan dadka ajnabiga waayo waxay laga yaabaa inay arkaan inaanay dadkeena wadanka muwaadiniinta ee reer Somaliland aanay iibsanaynin laakiin runtii haddii la fahamsiiyo yani in badan baa yeelaysa inta awoodi karta qadarkaas laakiin wax walba oo iskaashi ah ayuu ku iman karaa caymiskani wuxuu ku iman karaa waxbarasha la samayn karaa biyo dhaamiska la samayn karaa ee maanta abaaraha inagu soo ahda dadka مثلا gobol wada degan haday yiraahdaan wanayo
laba kun oo booyadood aynu isku darsanno halkaa dhigano lacagtaas laa qadar allah haddii abaar timaado labada kun oo booyadood diyaar hayno ahaadeen iyana marba isku yaacyaacine waa caymin wey waa insurance ay dadku wada galeen lacagtii baa u taala waa looga shaqaysiinaya weliba oo investment baa loo gelinaya way u shaqaynaysaa marka culimada runtii waxay ku soo koobeen inuu yahay qayb ganacsi oo aad u muhiim ah oo isugu jirta dadkii oo dhibaatooyinkooda laga qabtay iyo maalgashi labadaas isugu jira had iyo jeer sektor aad u qaaliya wey oo muhiim ah aad iyo aad bulshadii haddaba si ay arrintaasi u fahmaan waxyaabaha ugu horeeya marka iminka haddiiba baarlamanku ansixiyo xeerkaas meelaha laga bilaabi karo si bulshadu ay usoo gaadho heer ay markaa ku camal fali karaan wixii socday muxuu noqon karaa runtii saan hadda ku sheegay wuxuu noqon karaa number one horta in bulshada qeybaheeda kala duwan iminka gaadiidka kale ugu muhiimsan waa in la wacyigeliyo runtii odayaashii baabuurta watay odayaashii reeraha odayaasha reeraha waxay ka mid yihiin qeyb muhiim ah oo u baahan inay fahmaan waayo dadkii reerahan inagoo yani xagga sare dee dowlad ah haddana bulshadu dowladeero reeraa baynu odaybaa horjoogo u ah jilib walba oo markii arrimahan dhibaatada timaado lagula eertaa oo inanka halkaa imika qof ku jiira adiga caqilkiisaa soo daminta laakiin marka insurance iminka aynu galno caqilkii waanu wargelinaynaa annaga maalan iminka laakiin shirkaddaa soo daminaysa si immediately ah yani qof shirka galay haddii laa qadar laa qof ku dhinto oo geeri timaado shirkadda damaanad qaadaysa oo seexaysa oo sii daynaysa waa insurance buu ku jira laakiin reerka caqilkiisa annagaa wargelinayno caqada lahayn arrintaasaa dhacday la soco marka isaga information baanu siinayna laakiin waxaa markiiba hawshii waxa shirkadda caymiska ahaa iyo looyaradeeda waay haddaba aynu u gudubno qaybta kale ee markaasi maalgashiga oo iyadana la yidhahdo wadaag investment qaybtaas waxyaabaha xiisaha leh ku jira waxaa ka mid ah in maalgashi dhalinyaradu ay markaasi u sahlan tahay inay ka qayb galaan meelaha qaarkoodna waxaad ku sheegteen ilaa $170 qofkii inuu markaasi ku maalgelin karo mashruucan bal arrintaa nooga warbixi runtii marka dhinac laga eego labada mashruuc oo isqaadanayaan oo aniga idin sheego lacagta insurance lagu galay mar walba waxay u baahan tahay in investment la geliyo haddii ay qayb samayso loona arko mashruuca la gelinaya inuu munaasib yahay tana markaa runtii xiise badan le saad sheegtay cabdishakuurow muddo aan isleeyahay 2 sano ka badan ayaan ka fakaraynay mashruucan marka ma jiro waddankeena daraasaad qoran oo statistiga soo tixraacdo laakiin waaqaca wixii aanu ka aruurinay dadkuna ay inta badan og yihiin bulshadeenu maanta waxaan odhan karaa waxay iska noqotay 3 dabaqo oo kala sarreysa dad ladan oo runtii ilaahay ha u barakeeyo dee iska ladan marka miciyaarka lagu cabirayo annaga iska samaysanay cabir maanta ninka Somaliland joogay dhul dhisan iibsan kara ama guri dhisan kara ama xitaa guursan kara ama dakhli joogto ah oo isku haleyn kara leh kaas waa nin ladan dabaqada labaad ee ku xigta waa dad dhalinyaro u badan dhalinyaro markaan leeyahay waxaa 20 ilaa 30 jir baa dhalinyaro ah ama kasii badanba waa runtii dad badan oo boqolkiiba 60 lagu qiyaaso waxbaa soo gala laakiin waa meel buu taagan yahay aan hore u socon karin ku xanibay qaybta hoose runtii oo boqolkiiba 25 waxaa laga yaabaa meel ilaahay subxaana watacaala u arsaaqee meel isku haleeyeen wax ka soo galaanba ma jiro waa dadka iska xoogsatada maalina shaqo waaye maalina soo xamaasho maalina qof qaraaba wax siiyo ee nolosha adag noloshiisa kaga adag tahay marka shariixada ama qaybta dhexe 60% lagu qiyaaso awood badan baa ku jirta awood dhaqaale awood aqooneed awood muruq mid walba ku jirta yani haddaad u fiirsatana runtii lagama faa'iideysto aad loogama faa'iideysto yani haddii laga faa'iideystana wax aad u yar baa laga faa'iideystaa wada shirkadaha iyo dowladda u shaqeynayaan mooyaane wax xoog runtii marka waxaanu qorshaysanay inaanu businesskan curino businesskani ma aha business keliya faa'iido doona ma aha runtii wuxuu ku salaysan yahay business bulsho in bulshada la kiciyo waana ganacsi at the same time waa social business waa ganacsi bulsho oo ay ku jirto yani dareenka sida dowladdu ay ummadda u jeceshay in hormariso
dowladda xilkeedu waa horumarinta waddanka ganacsani waa nooca ganacsi ku dhisan in bulshada la hormariyo oo inanka dhalinyarada kor loo soo qaado oo jeebkiisu wanaagsanaado oo noloshiisii wax anfacaya awoodooda lagu sameeyo haddii guryo loo dhisi karo haddii shaqo loo abuuri karo haddii maaragtay sheerar la siin karo awoodoodii maaha charity marka runtii waa model adduunka ka jira oo inaga aad inama soo gaarin laakiin social businessku dee wax dad badan ay yihiin daawanaya garanayaan wax badan laga qoray tusaale waxaa loo soo qaataa ninka maxamed yunis la yidhaah ee bangladeshka ah 73kii isagoo professorka ah jaamacad Maraykana ayuu kula dooday in modelka afraad la sameyn karo hadii bariga hore waxa ka jiray yani public private and charity saddexdaas jira marka wuxuu waxaan soo kordhin karnaa model afraad marka isaga ka sheekeynay wuxuu igu jeesjeeseeno ganacsi dawladeed iyo mid gaar loo leeyahay iyo mid markaa samafala saddexdaas adduunka jira yani lacag marka la sheegayo xagee taala lacagta saddexdaas jeeb ku jirtay ama dawlad baa haysa ama ganacsatada haysata ama hay'adaha khayriga marka laga yimaado waxa individualka organizations ka lacageed marka aragti afraad buu keenay waana nin muslima maxamed yunus baa way ku jeesjeeseen wuxuu igu qosqosleeyay waxa dhahay waxa waa 73kii intuu iskaga soo tagay wuxuu yimi dalkiisa macallin buu ahaa macallimadii buu bilaabay hami umadnimo ku taagna wuxuu ku bilaabay $8 inuu wixii uu ka fakarayay uu ku bilaabay dhowr iyo konton lix iyo konton dumar wada ah oo khudaarta iibiya ayuu $8 u qaybiyay wuxuu ku ganacsada anay soo celiya faa'iidada ninkaasi 73kii 10 sano kadib 83kii wuxuu abuuray bangi waa qisa dheer buu leeyahay buug badan buu qoray ninkaasi wuxuu mutaystay dunidii reer galbeedku inay qiraan moraalkaas inuu yahay moraal shaqeyn kara deedna waa loo yeeray waxa la siiyey abaalgudka adduunka ugu sareeya loo yaqaano Nobel Peace Prize aragtida awgeed moraalkiina way qaateen reer galbeedku yani waxa la oran karaa imika bisiyada western ka jira badankoodu way qaateen ilaa jaamacadihii baa imika lagu dhigaa magaciisa xitaa jaamacada loo bixiyay Unis University ayuu bixiyay Mareykanka ku taal marka runtii yani waxaan ka wadaa waa aragtiyo adduunka ka shaqeeya inagu waxaanu waafajinaynaa shariicadeena iyo islaamka iyo wixii sax ah marka ganacsigan runtii waxa la oran karaa dad badan waxa dadkeena waxa ku yara badan niyad jabka arrimo badan xanuuno bulsho badan baa jira niyad jab baa jira kalsooni darra jirta is-aaminaad la'aan baa jirta waxaan rajaynaynaa inaanu waxaas oo dhan aanu ka dabaalno abuurno kalsoonina abuurno moralna abuurno yani imika inaad ku tiraa warni waynu waxbaynu qabsan karnaa qawaacid kalena runtii aanu halku dhikarayna waa jira cabdishakuro niyad jabka dhalinyarada haysta wuxuu ka yimid dayaca shaqo la'aanta xoogaa cid iyaga dantooda ka fakaraysa oo aan badnayn marka runtii halku dhig waxaanu ka dhiganay dayac walba waddankeena ka jira waa fursad haddii waxbarashadu liidato waxaa fursada inaynu horumarino haddii wax soo saarku yar yahay waa fursad inaynu wax soo saarno badda maanta badda ilaahayna siiyey haddaynu sidaa u galno oo aynu kumanaal kun oo tan oo kalluuna kala soo baxno bulshadeena oo dhow dhergi lahayd lacag iyo nolol buu ka leeyahay xoolihiiba halkan ah marka wixii aynu sheegaynay odhan jirnay dalkeena nimca fadhida iyo dalkeena barwaaqa fadhida iyo hodan baynu nahay annaga waxaanu niyeysanay inaanu cilmiyeyno marka shirkadan la yidhaaha wadaag investment tiirarkeeda iyo arkaanteeda waxaa ugu horeeya in departmentka la yidhaha research and development qaybta cilmi baarista iyo horumarinta sidaa daraaddeed falsafada iyo aragtida ku salaysan in runtii businessna la abuuro bulshadana la hormariya jeebkeeda weliba dabaqadaa dhexe aan sheegay ayaa waxaanu iyadana ka dhiganay mabaadi sheerarka inaanu aada u yarayno markaa sheerka hadda aanu furnay waxaa ugu horeeya mashruuca insurance-ka ugu horeeya mashruuca hadda yani horta labada shirkadood waxaa weyn investmentka tani waa portfolio ama waa laan ka farcantay taweyn insurance waa laan ah marka insurance wuxuu ka mid yahay mashruuc u horeeya hadda aanu gelayno
maalgelintu lacagta hadda aanu qabanayna ee sheerka ee 170 aan ka dhignay shuruuco horeeya hadda aan ku qanacsannahay inuu bulshadana wax tarayo commissionkaasina uu noqon doono waxay dadkan maal gashaday leeyihiin waa insurance-ka qaybta caymiska mashaariicda kale faraha badan waxaa iyadana ama baadi ka dhiganay wixii production inaan xoog saarno wax soo saarka iyo adeegyada hadda ka sheekeynaya caafimaadka waxbarashada waxyaalaha la midka ah ummadda danteeda ku jirto mar walba ma doonayno inaan ganacsiyadii hore isku dhacno ganacsiyada waxaan doonaynaa baritaarno haddii maanta roodhida laga hadlayo inaanu kuwa furinka haystay roodhida aanu u tagno kun idhaaho waxaanu doonaya wax idinla qabanee si ay saa aan idinla qaban beeraleyda saas oo kale marka runtii waxaan jecelnahay inaan sidaan kuu sheegay hadalkaa wanaagsan ee aan jeedinayo dad badan baa odhanaya oo hadal wanaagsan halkaasi laakiin ay odhanayaan laakiin maya waxa niyad jabka dad ku batay marka inaan waxba suurtagelin taa runtii waxaan jeclahay gidaalka inaan jabino war adduunkan rag baa ilaahay subxaan dad baa ilaahay ku maareeyey ragga cirka u baxa ee dayax gacmeedka dalxiiska u taga baalka imika dayax gacmeedka Cabdi Shakuro inaad tigir goosato oo soo dalxiisto aad tagto aad raacdo hawada sare 250,000 oo dollar weeye tigirkiisu kayuba loogu jiraa waiting listku waa kumanaal ya dad badan cirka isaga baxaado dayaxan waa dhul ilaahay subxaanahu wa ta'ala kanoo kala ah oon oxygen lahayn oon beer lahayn oon dhir lahayn oo waxba lahayn oo cirka ku laalan oo atmosphere ka baxsan oo ilaahay halka dhigay ay nooga dhigay wax mucjiso tigirkay ku goosanayaan waa 250,000 oo dollar dadna halkaas ka gaareen nolosha inaguna markaynu abuurayno roodhi iyo tamaandho beerano ay niyad jab dadkeena ku dhacay marka waxaan baahnaa inaan ka gudubno waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo u boogaadinaya muddo baan hadda wadnaawsha xafiiskayga waa dabaqan hoose labada gelin dhalinyaradu waa raxan gelin hore iyo gelin dambe habeenka waxaan ka baxnaa xafiiska 10 habeenimo 10 iyo 8 iyo 6 bay socdaan waxaan ku faraxsanahay dhalinyaro wax baratay oo qoonyahana aad u soo dhaweeyay mashruucan inaan niyad u hayo inaan runtii helnay oo aad ugu mahadcelin dhamaantood waxaan rajeynayaa inta kalena hadduu gaadho saas u soo dhaweyn doontaa cabdirashiid maxaa ku salayseen in 170 keliya laga dhigo ilaa goor muuse furnaanayaa fursadda ah in dhalinyaradu maalgashi ay ku samayn karaan mashruucaas wallahi waxaan ku salaynay inaanu yarayno marka 100 baa la yidhi 200 baa la yidhi 150 adigu yani 170 buu ku dhacay hadafkaygu waa inaan sii yarayno kan ku xiga waxaan doonaynaa ka sii yarayno laakiin waxaan runtii u sheegayaa walaalaha iyo daawadayaasha sheerka hadda aan furnay sida dadka shirkadaha businesska yaqaana waa sheerkii u horeeyay shirkadda lagu asaasay dadku maaha heshiiska naga dhexeeya maaha heshiis ay iska aanu lacagtooda ugu shaqeyno ugu soo celinayna maaha waa dad shirkadda wax ku leh waa shareholders rasmi ah yani shirkadda aanu dhisnay haddaanu kasoo qaadno guri waa jaajuur ka mid ah shirkadda marka yani waxaan rajeynaynaa inuu si degdeg ah value ama qiimaha sheerku oo u kici doono sida ugu horeysa markaan mashruucan aan dhaqaajino ayaa wax isbedelaya value-giisa maanta waa 170 6 bilood kadib waxa laga yaabaa inuu ama laba ku dhawaado ama uu maartay kor u kaco kaliya marka waxaan ku saleynay yareynta inaanu yareyno waxaanu furnaanayaa runtii imika xaqiiqatan ugu talagalnay inaanu xidhno 1 February laakiin gobollo badan oo ay ku jirto Boorame iyo Sool iyo aan la xidhiidhnay waana lagu qabsaday lagu qabsaday weliina maydaan soo gaarin noomaydaan imaanin xafiisyada hadda aan runtii wadnaa marka waxaan u malaynayaa inaanu waqti ku qasbanaan doono inaan wax ku weerar darnaha insha Allah taala fursaddan marka la eego maalgashiga maxaa faa'iidooyinka ugu ballaaran ee markaasi muddo kooban ama muddooyinka ugu soo horeeya laga dheefi doono maxaad u sawiri kartaa dadka dhalinyarada ah ee doonaya inay aaminaan arrintaas ay kusoo dhiirradaan wallaahi dhalinyarada imika markaan la hadlayo si joogtaan kuu sheegay si joogto ah baan u kulanaa mashruucani maaha mashruuc degdeg ah dadku waxay tusaale soo qaataan dad baa lacag qaadan jiray jifo jaq baa nalagu yimiyey markaan u warramo way ku qancaan ku dhawr annagu jifo jaq ma nihin annagu waxaan nahay dad waddanka degan shirkadda caymiskaanu samaynay maaha laysan aan dukaan ka saybsanay dowladdu shuruud bay ku xidh hanti bay ku xidh
dhowr milyan baa ku xidhan inaad liiskaa qaadato waay hanti ma guurto ayuuda baa ku xidhan Waay. amaha wax yani dad socota ama wax dawladuna soo hubisay soo habisay dhaqaalana uu ka yaalo Aha. aaminaad badan oo hanti dadku leh weyn oo dhowr milyan baa shardi ah qofna Waay. laysanka iskama qaadan karo waay yani ugu yaraan waa 2 milyan inaad soo cadayso inaad shaqo businesskaaga uu gaarayo yani dhowr boqol oo kun hanti ma guurta ah yani runtii waa laysan muhiim ah dawladda si wanaagsan bay u adkaysay waay marka way ku qancaan oo dad socota ama nima ku dhahaaye Waay. shifo sadad share kan yar faa'iidada degdega laga sugayo waxa ka weyn yani istiraatiijiyada dhalinyaro badan markay ku qanceen ku fahmeen waxaan ku dhahaa inaad maanta hal share ku yeelato fursadaha kuu furaysa waxa ka mid ah xeerka shirkadda waxa ku qoran dadka maanta share ka qaata ayuunbaa fursadaha dambe oo dhan mudnaanta koowaad leh waay mudnaanta koowaad markaan leeyahay waxaan diidaynaa in albaabka xidhno marka xeerka waxaa ku qoran 15 maalmood waxaa la baahinayaa marka mashruuc cusub baa soo baxay maalan berita waxaad samaysaan warshad caano waxaad samaysaan beer digaaga ah waxaad samaysaan doonyo lagu soo kalluumaysto dhaqaalo dheeraadan u baahanay waay marka waxaan doonaynaa inaan raise garayno 1 milyan ama 2 milyan dollar marka waxaa marka koowaad shareholders hadda ayaa la siinaya fursadda waxaa ku 15 maalmood gudahood haddii dhamaysan waayaan ama qaadan waayaan bulshada marka la soo bandhigaya marka fursadani waxay hadda sheerkan ku fiican yahay mar walba wuxuu chance u helayaa inuu wixii soo baxba isagu uu qaato ama cid uu isagu keensaday ha qaato ama ha qaatee runtii uu ka faa'iideysto waay marka runtii wayna la fahmeen business degdeg ahoo dadkana dee anagu been u sheegamayno haddaanu lacag idin daldalaynaa maaha waxaanu ka fikeraynaa wax dheer shakuurow runta markaan ku sheego yani waxaa laga yaabaa in la yidhahdo buunbuunin badan baa ku jirta qorshayaasheedii fahamigayga waxaa ku jira yani dadka waxay cuni lahaayeen inaa meeshay degi lahaayeen ha in la soo marka saaro deegaanka qofka dhalinyarada ah waxa ugu adag Hargeysa iyo Burco iyo magaalooyinkeena waaweyn oo dhan inuu guri helo waxa laga yaabaa in la yidhahdo lama maarayn karo mushkilad weeyaan waayo dhulkii baaba qaali ah waa la maarayn karaa waxaan la maarayn karin ma jirto sabir baa lainooga baahan yahay bani aadamkeena la mid ah caruurtooda guryo u diyaariya laakiin mar qura inagu waxaan doonaynaa tujaarteena iyo waxay doonayaan hal mar helaan adigu waxa laga yaabaa inaad ku degan tahay guri $300 ama $400 laakiin waxaa suurtagal ah inaan berita gaadhno $400 inaad guri ku iibsato laakiin 20 sano kaa sugaya ama 15 sano faa'iidan ku saaran maaha 30 iyo 40 iyo 50 2.5-3% ayaa ku saaran marka waxaani waa ummadda wax u taraya faa'iido degdega maaha haddaan 1,000 ama 2,000 dhalinyarada guryo loo dhiso waa investment aad u weyn laakiin returnku maaha profit weyn maaha ummaddu aad laakiin waxaad hayar marka wax aan la maarayn karin ma jiro bulshooyinka adduunka ku dhaqana saas u nool yihiin nin baan wada shaqayn jirnay berigii aan abdul ka shaqayn jiray maaradka markaasuu wuxuu go'an jiray suuri waxa wali dawlad shirkad baa guriga dhistay oo wax yar buu diri jiray san la yaabi jiray ninka isku mushaar baa isku xafiis baan fadhinaa markaasuu guriga dhistay laakiin anigu ma lihi cid caawisa iyo shirkad waddanka ka jirto inta guriga dhisto in yar oo installment iga qaado ma haysto waxaa laga rabaa mar qoyan $100,000 guri ku dhisto ama dhulka kaliya kunta ku iibsado awoodii ma jirto dhalinyarada ma haysto fursadda waxaan ka runtii uga faa'iideysanaya fariintan mashaariicda aan investmentka u dhisnay waxa kamid ah dadka qurbaha laftooda dadka qurbaha Cabdishakuurow waana dadka waddankeena ku tiirsan yahay yani bishii waxay soo diraan yani lacag aad u fara badan oo sanadkii waxa lagu qiyaasaa 1.5 bilyan haddaad u qaybiso 100 milyan lacag aan ka yarayn ayayna soo gashay 100 milyan waa lacag aad u fara badan qurbaha ayna soo gashay dadkaasi waa dad runtii aan oran karo waa dad wanaagsan oo waddankooda jecel laakiin yani abaalgud waxay naga mudan yihiin inaynu ugu abaalgudno inay iyaga gacan qabanno way shaqaystaan waxbaa soo gala xitaa kuwa ay dawladda caawiso waxbaa soo gala laakiin waxaa soo gala waxba noqon maayaan haddii fikradahan oo kale aanay helin haddii annaga waxaa noogu jira qayb dhan oo ah fund management dadkaas hagbadaynu naqaano soo ma qaab hagbada oo kale ah inta akoona loo furayaa insha Allah markaan mashruucan dhamaadaan si wanaagsan program ka samayn doonaa laakiin hasidii diyaar garoobeen waxaanu u sameynaynaa qaab hagbad oo kale ah waa loo haynayaa lacagtoodii waa loo maamulayaa account baa loo sameynayaa qofku $100 bishii hadduu soo diri karo hadduu $1,000 soo diri karaba marba awoodis intay tahay marka
ma awoodi karo qofkii inuu hal mar 10,000 ama 20,000 laakiin waxaan fursad insha Allah ugu bashaareynaa inaan u sameeyno qaab aan ugu maamulno hagbadii kale oo haddana u shaqeysa oo investment u gasho oo berito mashaariic waaweyn oo wadanka u gasho waana fursadaha aragtiyooyinka waxay ka mid tahay Cabdishakuur aan jecelnahay dadka in wadanka soo xidhno wadankii jeclaadaan ma xitaa generation waaweyn caruurta yar yar af Ingiriisiga mooy af Soomaaliga aan garanayna Yurub iyo Mareykan iyo Finland jooga in lagu yiraahdo shirkad wadankii ku taalaad shareholder ka tahay shahaadada ku leedahay waa nooc wadankiisi ku soo xiraysa haday lacag badan noqoto berito dhul iyo beero iyo xoolo iibiyana waalidkaasi berito haduu adduunka ka tago dhinto ilmahaasi wadankii uu ku xidhnaanaya runtii aragtiyooyin waaweyn oo xitaa ay ka dambayso in dadka qurbaha la ilaaliyo marka sidee baa u gaari kartaan meedada qorshaysan tahay inaad wadanka dibadiisa laamo ku yeelataan runtii hadda laamo uma baahnin yani waxaan u baahanahay kaliya inaanu dadka ogeysiis fiican siino waa soo wareegi karnaa waa tegi karnaa insha Allah tacaala marka dhalinyarada kale marka maadaama ganacsigan la doonayo in dhalinyaradu ay moogtahay si weyn uga qayb qaataan maxay tahay fariintaada ku saabsan dhanka maalgashiga ee dhalinyaradaas marka aad doonayso inay sameeyaan runtii waxaan dhalinyarada oran lahaa markaan dhalinyaro leeyahay dhaqaalaha yar dee qof weyn u diidi mayso xitaa waxaanu dee qofka xitaa ganacsadaha lacag haysta qof waa la basan karaa 170ka qofku wuxuu ka dhigan karaa hal share laba share 100 share 200 share 500 share baa limitka u sareeya aanu ka dhigin 500 share marka lacag loo rago waa $85 $85,000 ayuu qaadan karaa hal qof qofka ugu badan hal mar laakiin inta ka hooseyso qofku uu qaadan karaa 10,000 iyo 20,000 buu ka gali karaa dhalinyarada waxaan u target gareynaynaa awoodda dhaqaale iyo mushaarkeena way noqon dhalinyarada inta badan de 300 400 500 baa mushaarooyinka dhalinyarada u badan marka runtii waxaan leeyahay inta ka qayb qaadan karta ha ka faa'iideysato inta kalena insha Allah tacaala fursado kale ayaa u soo bixi doona oo anaga lafteeda doonimayna in yar un يعني chance ku furno ninka maanta aan awoodin malihin way ka xirantay insha Allah fursad kale ayaan u diyaarin doonaa ay kaga faa'iideystaan marka asaas uu noqon doonto mid istaba jooga marba jiil insha Allah tixgelin doono muhiimka waxa weeyaan Cabdishakuur in wadankeena ku qanacno inaan wax qabsan karnana ku qanacno formuladan isticmaalayna waa awoodiyo la mid anigu mucjizo keeni mayno awoodiyo la mideeyo tusaale yar hadan kugu dhufto Somaliland tirakoob rasmi ma hayna 4 milyan ama iska nidhaha Soomaa laakiin waxaanu haynaa tirakoob fiican oo sugano berigi dhawatay kaarkii doorashada waxa qaatay 1 milyan iyo 50,000 waa number aad weyn dadkaas kala barkood 500,000 haday fahanto fariintan oo sanadkii isku darsadaan $100 waa 50 milyan oo iyagu leeyihiin maaha cashuur maaha wax maartay ka maqan inkastoo cashuurtaas aaminsanay in ummadda wax loogu qabanayo dadku laakiin waxay iska aamineen wixii dawladdu ka qaaday inaan iyagu lahayn iyaga leh xaqiiqatan oo iyaga loogu shaqeynaya marka tan laakiin waa wax iyagu ay leeyihiin investment ah formulooyinka kale Cabdishakuur isticmaalina waxa kamid ah hab goboleed weey program markaan joogno daraasadda laga diyaariyo 50,000 qoys degan ayaanu doonaynaa in iyagu ay dantoodii waxay ku jirto isu kaashadaan quraan marka la joogo يعني انت سoo kale 100,000 10,000 qoys degan marba intii isla fahanta inaanu tusno baahidii marka soo madhigno daraasad lagu sameeyo gobolkii ama mashruuc ganacsiyo gobolka suurtagali kara deedna la yiraahdo mashruuc ma gashanaysa marka qaar waxaanu sameeynaa mashaariic waaweyn oo ka weyn gobolo heer qaran oo kala daawadayaal waxaanu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka xogta ganacsiga oo aan ku eegaynay sharikada wadaag investment iyo sidoo kale qaybteeda kale ee caymiska loo yaqaano wadaag insurance waxaan rajaynayaa in Cabdirashiid Baaxir gudoomiyaha sharikada ka fahanteen fariimahaasi xambaarsanaa dhiirigelinta dhaqaale iyo sidoo kale badbaadada dadka iyo sidoo kale gaadiidkaba in markaas sharikada wadaag horseedi doonto iyadoo markaas ay ugu muhiimsan tahay sharikadaasi maalgashiga ee dhalinyaradu ay awoodi karaan markaas inay ku biiraan oo mulkiilayaal ay ka noqdaan wadaaga dhaqaale ee halkaas markaas ka jira iyo sidoo kale qaybta kale ee caymiska oo iyaduna ka dulqaadi doonto dad badan culayska markaas khataraha kaga yimaada tan ee kulan dambe waa barnaamijka xogta ganacsiga oo intaas aan ku soo gabagabeynayno waxaan idin la socodsiin anigoo ah Cabdishakuur Dayib Maxamed tan ee kulan dambe nabadgelyo Cabdirashiid Maasanta aad baad maasanta